بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaan doonayaa anigoo cumar iimaan ah inaan laba kelimo oo gaagaaban oo whatsappka dadka ugu diro oo tiiba 15 daqiiqa iyo wax ka yar ay tahay inaan kaga hadlo cudurkan ama jiradan corona la yiraahdo. dad badanna way ka hadleen, niba sibuu uga hadlaya, marka waxaan rabaa si kooban inaan uga hadlo waxaa hadda maanta dhacay ee ummadda qabsaday muslim iyo gaalabo. shaki male waxaan ugu habsaday inay musiibo ay tahay. waxaan u leenahay musiibo way tahay maanta oo ay tahay maanta oo axad ah, bisha afaraad ay tahay 12-keeda. inta hadda ku dhimatay muslim iyo gaalo iyo qaarad kastuu degan yahayba 100,000 bay sii gaarayaan. inta uu ku dhacay 1 milyan iyo bar 2 milyan bay kusii dhow yihiin. intii soo hartay oo intii dhimatay intuu ku dhacay intii soo hartayna guryabuu ku xareeyay oo dheeraad u tahay cabsi iyo khawf iyo qalaq. qofka uu ku dhacay baabaad leedahay waaba uu ka roon yahay midka hadda sugayo. guriga buu u fadhiyaa, wuxuu leeyahay maanta ma kugu dhici doonaa, waxaan dareemayaa asiga miya. xaalada meel adag bay maraysaa, noloshii oo dhan way istaagtay, bal waxaan dhihi karnaa noloshii oo dhan dhulkuu la galay. marka intaa laysku daro waa cuquubo bimacna alkelima ah weeyaan. haddii iska dhaafa mid ka mid ah dadka guryaha lagu xabisa keligeed hadda laga soo qaato, cuquubo ka weyn male. noloshii baa istaagaysa, saan hadda laguma sii socon karo. cudurkiina dadkii wuu hayaa, noloshiina way istaagtay. waxaa la ogyahay in dhaqaalaha caalamka ka jiro dhan haddii 2 bilood san ay ku socoto dhulka uu galayo, oo haddii ummaddii waxay ku noolaataba aan la heli karin. marka waxaan isweydiinaynaa cuquubadan nagu dhacday ee caalamkao dhan aan u jeedaaye maxay tahay? waa xayawaan yar oo indhaha caadiga aan lagu arkaynin, oo daciif ah, nolol aan lahayn, ee jurtuumo ah. marka waa jundu min junuud illaahi, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. ilaahay markuu rabo inuu wax adeegsado, koonka dhan waa junuudiisa, siduu raboonu u adeegsanayaa. marka intaanan hadal kala gaarin waxaan isweydiinaynaa dowladihii waaweynaa 50 sano 70 sano wax ka horeeyey dayaxa gaaray, qamarka hore u sii dhaafo mariikh gaaray, nukleer samaystay oo badda hoosteeda ugu jira, oo dhahay caalamkao dhan hal haddaan ku soo dayno koonkao dhan waa qarxaya. qiyaamada la sheegaaba annaga dadkii lahaa, samaystay raadaar lagu ilaaliyo amniga dowladda, ee ay leeyihiin tixsigii soo galo waddankeenna wuu noo muuqanayaa. sidaas daqiiqadda uu xuduudda ka soo gudbaya waan ogaan karnaa. waxay samaysteen satellite wax la yiraahdo, oo haddee dhulkan hoosteeda iyo macaadinta ku jira ma sawirayo. dhulkan annaga carada hadda wixii ka hooseeya ma arkayna. dad baa waxa weeyaan ilaa 500 mitir hoos wixii ku jiro oo dhan baa la arkayaa. marka waxaa lagu leeyahay inta batrool baa ku jira, inta biyaha ku jirta, inta kayta, inta burkaan oo qarxaya ku jiro. dadkii sidaas horumarka u gaaray maanta waxaa la tusinayaa darsi yar oo la leeyahay qofka markuu kibirka iyo isla weyninka ay xad u gaaro, waxa weeyaan waa la istaajinayaa. marka xikmad baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka leeyahay. waxbaa lagu xasuustaa qoladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka hor timid, marka aaliha samaysteen oo yidhaahdeen ilaahay waxaad ka rajaynaysiin muslimiin haddaad tihiin yaan annagana asnaamtan iyo waxaan caabudaynaan ka helaynaa bay yidhaahdeen. ilaahay wuu soo gaabi wuxuu iri ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah. waxaad ilaahaynimo caabudaysaan haddaad isu keentaan kulligeed hal tixsi inuu abuuraan ma kari karaan. wain yaslubhum اdubaabu shayئa laa yastanqiduuhu minhu dacfa الطaalib wاlmaطluub.
haddii tixsigaas uu kala tago oo wax uu ka baxsado uu afkiisa ku qaatana kama soo cesho karaan. maanta waxaan arkaynaa xayawaankaas yar oon indhaha lagu arkaynin noloshii bani aadamka ah ayuu shafaya, ayuu qaadanaya, halhal buu u qaadanayaa. maraykan iyo duwal qawi ah iyo mid daciif ah waa la fiirsanayaa. nin dhihi karo qofkaan hanaga dilin hanaga qaadanin ma jirto. dhimashada maraykanka maanta 20,000 bay sii gaaraysaa. yacni awood nin kasta wuxuu leeyahy nafsii nafsii. marka waxay tahay marka ugu horeyso bani aadamka kibirka meesha uu ka gaaray duruus yaroo dib loogu celinayo oo leebal is ogow waxa tahay adiga. waxaa in isxasuusin u baahan cadaabkan asiga ah waxyaar markii loo barbar dhigo cadaabyaalkii umamtii hore ku dhici jiray. liannahu ilaahay samada naguma soo dayno, samada naguma soo duminin, baddi naguma soo fakinin, dhulkii naguma qarxinin. xayawaankan yar yuu ilaahay subxaanahu watacaala darsi noogaga dhigay dhammaanteen, muslim iyo gaalo wuxuu ahaadaba. waxaa ka siiyaa badan inta hadda dadka dhibka ku dhacayso oo hadda aad u jeedaan. haddii tasawaru maradkan corona la yiraahdo ama COVID-19 haddii nin kastoo ku dhaca oo u dhiman lahay maanta maxay noqon lahayd? waa in la isweydiiyaa. hadda dhimashada 100,000 joogto 2 malyan oo ku dhaca hadduu dhiman lahaa ay wada u dhiman lahaayeen cudurka ninkuu ku dhacba hore uu ka dhiman lahaa. hadda waxaa weeyaan 5% ma dhamo intuu ku dhacay dhimashada. haddii 100% loo dhiman lahay ninkuu ku dhacba u dhiman lahaa. shaki waxaan lahayn in noloshoo dhan ay isku dhexyaaci lahayd. nin kastaba wejigiisa meeshuu qabto inuu dhaqaaqi lahay. nafta orod bay kugu aamintaa bay la dhihi lahay. dowlad iyo xuduud iyo anagaa fulaan iyo ma jirto. intaad dhimanaysa iska soco unbaa imaan lahayd. yacni waa haddii maanta ay cudurkaas uu ninka kastoo ku dhaco uu dhiman lahaa. iyadoo hadeertaan ay tahay intuu ku dhacay boqolkii bani aadamka oo dhan maaha, intuu ku dhacay 5% ay ka tahay yaa nolosha heerka hadda aad arkaysaan ay maraysaa. famaa baaluka haddii maanta nin kastoo ku dhacay, shaki waxaan lahayn inta kale uusan ku dhicinne intaysan cudurka u imaanin qaar baa iska dhiman lahayba. leanna wadadaa nolosha waxay u arkaan aan aakhiro aaminsanayn, aan taxamuli karin. markii khowfka darajo uu gaaro aan taxamuli karin oo isku dhexyaacay. marka waxa weeyaan ulajeedada aan rabno inaan kaga hadalna waxay tahay asbaabta keentay. dadka waxa weeya ilaahay caqli wuxuu kuu siiyey wax kastoo dhaca waa ina dib u akhrisaa. ilaahay caqli buu ku siiyey. marka waxa dhacay ba inaan aan fikirna. qaacida guud baa jirto maa nazala cadaabun aw maa nazala balaaun ila bidanbin walaa rufica ila bitawba. waa qaacida xadiid bay dad leeyihiin ma aha, ama waa qowl cabaas ibni cabdilmuطalib, ama waa xikma la yiro laga soo qaatay nusuustii sharciga aheed lagala soo dhexbaxay. marka bal waxaan weydiinaynaa macaasida ama mukhaalafaadka aan samaynay annaga haddaanahay bani aadam oo nagula ciqaabo, horta waa ina dib u akhrina. ma toosannahay mase waa khaldannahay? marka aan nimaado dadka laba aan u qaybino, gaalo iyo muslim. wixii muslimiinka soo haray waa gaalo, kiristaan ha noqdo, yahuud ha noqoto, buudiyiin oo hunduuska looda caabudo ha noqoto, kuwa shiina iyo balaayo, waxaan oo dhan waa isla gaalo waay. qolada ahlu kitaabka ayaa waxaa la yidhi markii lala dhaqmayo oo kale muslimiinta waxaa u bannaan inay sidaa ula dhaqmaan si kuwa ka duwan tacaamulka adduunyada, laakiin macnahan waa gaalo. liannahu ilaahay bay u shariig yeeleen oo wax kale bay caabudeen. waa wax la wada ogyahay masaladaas meesheeday leedahay. marka aan kufaarta u nimaado, waxaan leenahay kufaarta maanta jirto, muslimiinta waanu imaan doonaaye dembi kasta oo umamtii naga horeysa kasoo bilow nabiyullaahi nuux, reer caad ku soo xiji, reer thamuud ku soo xiji, soo soco
ilaa aad ka soo timid wixii dembiyaal umamtii hore ay samayn jireen calanfiraad si gaargaar ay u samayn jireen oo lagu ciqaabi jiray ayadoo laysku keenay bay kulligeed wada samaynayaan gaalada maanta jirto. mithaalahaan waxaan kaaga soo qaadayaa marka reer qowmu luud oo kale la yimaado maxaa lagu ciqaabay reer qowmu luud yacni waxay ahaan jireen raggii baa raggii u tegi jiray. intaas keligeed ma ahena meelaha waaweyn oo laysgu imaano nawaadiga la yiraahdo oo shaleemada iyo waxaan lagu dhigay ku samayn jireen macsida iyagana way fiirsan jireen. ata'tuuna fi naadikum lmunkar baa ilaahay uu yiri meelaha caamka ah yaa lagu samayn jiray. maanta caalamkan gaalada joogto waxaa la sameeyay nawaadi alibaaxiya wax la yiraahdo waxa weeyaan wax iska mubaax wax kasta la sameynayo faaxishadii oo la sameynayo nin uu ku sameynayo dumarkii dumar ku sameynayaan labadii oo isku sameynaya inta la yimaaday ummad dhan fiirsanaysa. intaas laguma kaabanin inta la sawiraa youtube-kii meel kasta loo dirayo adigoo haddaad tiraa warqadan akhriso yaa lagu soo tuuraya. yani taas keli waxaa dheeraad reer qowmu luud waxay samayn jireen ayaga ficil ahaanay u samayn jireen. gaalada maanta jirto wixii waaba la sharciyeybo barlamaanka laga soo ansixiyey dowladii baa saxiixayso ninkii inuu guursan karo gabadhii inay guursan karto in waxaa banaanka lagu samayn karo waaba la sharciyey dastuurkiiaba lagu daray waa dhaafeen reer qowmu luud marka. ayib waa hal nuqto weeyaan. markaan ka soo qaadano fircawn waxa ilaahay uu ku cadaabay isla weyninkiia inta xadka ka baxo ilaahnimo sheegtay. ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiican yastadcifu طaa'ifata minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum inahu kaana min almufsidiin. fircawn ilaahnimou gaarsiiyey kibirkii. maanta waad aragtaa waxa weeyaan caalamkii wuxuu ula dhaqmay inuu kala qeybiyo intuu yidhaahdo anigaa idiin haysto sida maraykanka iyo ruushka iyo shiinaha hadda ay samaynayaan annaga anagu soo daba fayla baa le noloshii umamtii dhan bay kala dagaalamayaan. waxaan idhaahda nagalama daba hadli karo waxaan lagu leeyahay fito yacni aniga khaladkayga cid iga sixi karta ma leh cid kale oo wax qaban kartoon aniga u ogolaynana ma jirto. macnaha fito saas weeyaan golaha amniga dulmigiyaa la sharciyey aniga waa ka awood badanahay waxaan rabaan samayn karaa igalama daba hadli kartid laakiin adiga waxaan aniga kuu saamaxa mooye ma samayn kartid. waa tashriic kibrigii oo la sharciyey waa asigana. saas markay tahay intaasoo macsi ay sameeyeen haddii lasii daba raaco mid baa looga helayaa cadaab baa lagu mutaysanayaa. sidaa daraaddeeda ilaahay wuxuu iri markuu gaalada la hadlayay akufaarukum khayru min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur. yacni dadkii hore waan halaagnay dembigii ay galeen baan ku halaagnay adinka dembigoo kale asigii oo kale haddii aad samaysaan waxa idin diidaya inaan idiin halaagna maxay yihiin? ma gaalo dhaanto mase adiga ilaahay baad ka haysataan ogolaasha inaad waxaad rabta samayn kartaan oon lagu ciqaabaynin? caqli mantiq ma aha. marka waxa weeyaan xaqiiqada dadkii hore waxa lagu ciqaabay dembigii ay galeen haddaad adiga samaysid waxay mutaysteen baad adigana mutaysanaysaa. saasay jawaabtii ay tahay. sidaa awgeed gaalada maanta jirta ayagaan hadda ku jirnay muslimiinta waanu imaan doonaaye fursa bay haysteen. fursada ay haysteen waa maxay? ilaahay wuxuu ummadda nebi maxamed u siiyey nebi maxamed haddii ahaan wuxuu u siiyey ummadaadan gaalada xataa ummadii nebi dacwadiisa khusaysay ka mid yihiin. ummadan waqtigan joogtona ummatu dacwo waa nebi maxamed dacwadiisa yaa khusayso. ummadaada waxaa leedahay ciqaab caam kusoo ridi mayno maadaama adiga aad dhex joogtid. haddii adiga lagu waayana haddii ay jiraan qaar ka mid ahoo toosanoo ilaahay ku xiran oo dembiga ilaahay inuu dhaafo weydiisanaya waan ku badbaadinaynaa. wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. marka dadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ilaalinayay inay dembiga maxaan ku irahdaa lagu qaado oo muslimiintii joogi lahay bay kala dagaalamayaan inay diinta ka kharibaan, caqiidada ka kharibaan, dowladahooda ka kharibaan, noloshoo dhan ay ka kharibaan. macnihii waxay ka dhigan tahay gaaladii inay leedahay cid aan u baahannahay male wixii rabaan hanagula dhaco
waxa ay dhaamaan qoladii malaman in kaana hada huwa alxaq ilaahuna cadaab qoladii yiraahdeen. marka meeshaas aan kelimada hore ku ekay. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin.